maanta waxaan kuu soo gudbin doonaa 10 shay aad ku ogaan karto qofka sida dhabta ah kuu jecel waxyaabaha uu sameeyo. run ahaantii maanta waxaa jira xiriiro jacayl kuwaas oo aan la ogeyn waxa ay ku socdaan iyo waxa ay yihiin. intooda badan lagu wareersan yahay in jacaylka dhabta uu ahaa iyo in kale. laakiin maanta waxaan kuu soo gudbinayaa waxyaabo aan isleeyahay waad ku ogaan kartaa qofka ku jecel ee uu sameeyo. qofku markuu qofku jecel yahay kuna daneeyo adiga waxaad ogaataa waa qof aad ku jecel. waxaa jira waxyaabo uu qofka muujiyo ama laga arko. haddii uu qofka intaan soo socda sameeyo waxaad ogaataa inuu aad ku jecel yahay. midda koowaad waa qof aan adiga kugu dirqin waxaadan rabin. haddii uu yahay qof aan kugu qasbin inaad wax samayso runtii waa qof ku jecel. waa qof ixtiraama go'aanadaada. qofka ku jecelna waa sidaas. si fiican ayuu dhegaystaa hadalkaaga. qofkani iskama dhigo kaliya in uu maqlo balse si fiican buu kuu fahmaa kuna dhegaystaa waxaad ka hadlayso. waqti ayuu ku siiyaa qofka adiga ku jecel. in badan kama maqlaysid mashquul ayaan ahay iyo wax la mid ah. wuxuu heegan ugu jiraa in uu kula hadlo markasta aad u baahato. wuu ku daneeyaa adiga iyo wax kasta oo kugu saabsan. qofka daneeya wax kasta oo adiga kugu saabsan runtii waa qof adiga aad kuu jecel. fariin buu kuu soo diraa si uu kuu xusuusiyo in uu aad kugu xiisay. waajib ma ahan in uu talkaaga ka buuxiyo fariimihiisa, laakiin waxa uu kuu soo diraa fariimo aad u qurxoon. wuu ku xusuustaa maalin kasta. waa macquul in uusan kuu sheegin inuu adiga maskaxda kugu hayay ama kaa fikirayay, balse haddii uu ku jecel yahay waxaad ku jirtaa maankiisa. waa uu ku caawiyaa si kasta oo ay macquul tahay in uu kugu caawin karo adiga. waa uu ku garab joogaa xilli walba aad u baahato iyo xilli kastoo adagba duruufaha noloshaada. marnaba kaama tago oo garabkaaga kama tago. adigoo u baahanna kaama fogaado. waxa uu ka murgaa xaaladahaaga iyo waxa aad ku sugan tahay. runtii farxaddiisu waxa ay tahay farxaddaada. haddii aad adiga murugaysan tahay waa uu dareemaa oo waa uu ku weydiiyaa xaaladahaaga sida ay tahay. waxaad ogaataa sida aad tahay inuu kugu jecel yahay. haddii ay jirto calaamad sheegaysa in qofku jecel yahay waa tan marka uu qofku ku aqbalo sida aad tahay xumaan iyo wanaagba, kuna weydiiya waxa uu ku jecel yahay si xadlaan ah. jacaylkiisuna ma ahan mid shuruud wata ama codsiyo fara badan soo gudbinaya. waa mid mar walba ku qanacsan sida aad tahay. codkaaga iyo la sheekaysigaagaba waxay u yihiin adduunyadiisa oo idil. waxaad ogaataa qofka adiga sida dhabta ah ku jecel waa qof codsigiisa uusan badnayn. waa qof mar walba adiga garabkaaga jooga xitaa aan sunaantaada fahmi kara intii aadan wax u sheegin. waxaad ogaataa haddii aad aragto qof arrimahaas aad ka dareento waa qof adiga si dhab ah kuu jecel. qofkaasina ma ahan kii jacaylka dhalanteedka ah watay ee waa mid dhab ah kuu jecel. ogow midaas.